السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال meel kastood ku sugan tihiin waqtigu haynii wacnaado samana ku waara haddaba saaxiibayaal kusoo dhowaada qiso ka mid ah qisooyinkii xidigaha saxaabada xidiga aan caawa ka sheekaysanayno waxaa weeyaan xidig cajiiba run ahaantii sheekadiisa qisadani meesha ay ka dhacday waa magaalada maka almukarama magaalada barakeysan almaka mukarama xilliga ay dhacdana waa xilligii bicdadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ay ku sugnayd maka xaaladuna ahayd xaalad aada iyo aada u cakiran dacwaduna ay ku jirto dacwo siri ah oo nebiga sallallahu calayhi wasallam maaragtay dhibaato badan iyo culays badan kala kulmayo cadaadiskaasoo noocyo badan lahaa mid warbaahineed iyo mid siyaasadeedba oo reer maka iyo gaaladii quraysh iyo kufaar quraysh oo dhan ay doonayaan in ay nuurkii bicdada iyo nuurkii islaamka ay meesha ku baktiyaan haddaba xilligaas iyadoo lagu jiro dacwadiina maaragtay dhibaatada ay la kulmayso ayaa waxay go-aan ku gaareen kufaar quraysh in dadka imaanaya maka oo ahayd muxuu ahaa xarun iyo rug ganacsi ahayd iyo meel barakeysan oo xaj iyo cibaado loo yimaado ayaa waxay ku talagaleen dadka imaanaya ee meesha imaanaya in looga digo nebiga sallallahu calayhi wasallam oo uuna fursad u helin inuu la kulmo gaar ahaan dadka qaaliga ah ee VVIPda ah in laga ilaaliyo haddaba xilligaas iyadoo lagu jiro ayaa magaalada maka almukarama waxaa soo caga dhigtay oo yimid saxaabigan aan sheekadiisa caawa ka sheekeynayno saxaabigan waxaa la yiraahdaa atufayl ibnu camr addawsi saxaabigu wuxuu ahaa abwaan ah oo qiimi badan oo murtid iyo lagu yaqaano odayna ka ahaa la ixtiraamo bulshadiisii iyo dadkiisii reer Dows markuu saa u yimid atufayl ibnu camr addawsi magaalada mako markiiba waxaa la kulmay nimankii loo xil saaray in ay uga digaan nebiga sallallahu calayhi wasallam qof kastoo imaanaya si aynu u arkin una dhageysanin haddaba tufayl ibn camr addawsi markuu saa u yimidba waa lala kulmay waxaa lagu yiri magaalada xaaladeedu ma sahlana waxaa jooga nin maxamed la yiraahdo oo haddii aad dhageysato hadalkiisu malab yahay saa daraadeed hadalkiisa ayaa kugu sixiraya markaa ninkaas iska ilaali hana dhageysanin waan kaaga digaynaa iska jir hana la kulmi ninkaas ayay ku yiraahdeen aada iyo aada bay uga digeen ilaa ay cabsi iyo baqdin aada u daran ay ku beereen ninkii tufayl ahaa tufayl wuxuu yidhi si uu soo socday ayaa wuxuu arkay nebiga sallallahu calayhi wasallam ayuu wuxuu kula kulmay oo ku arkay xaramka dhexdiisa ama kacbada dhexdeeda isagoo jooga oo qur-aan akhrinaya markaa isaga cabsidii lagu beeray daraaddeed ayaa wuxuu ku talagalay inuuna marna dhageysanin nebiga sallallahu calayhi wasallam maaragtay hadalkiisa iyo wax afkiisa kasoo baxaba inuuna maqlin saa daraadeed dhagihiisi ayuu soo cudbi kusoo cufay oo kusoo guray dhagihii isagoo soo daboolay oo dhagihii suuf kasoo buuxiyey oo ugu talagalay inuuna maqlin iyo maca daalika ayaa markuu saa u arkay ee uu soo dhawaadayba ayaa wuxuu maqlay qayb ka mid a qur-aanka nebiga sallallahu calayhi wasallam oo akhrinaya tufayl intii yaradee maaragtay qur-aanka ahaa ee dhagihiisa usoo gudbay ayuu la yaabay macaanka uu qur-aanku leeyahay markaasaa wuxuu yidhi warniyaho adigoo abwaan ah oo ilaahay baray maaragtay murtida iyo waxa xun iyo waxasan kala garanaya miyaa kala yacni maaragtay maanta hadal aada dhegeysato miyaad ka baqaysaa ayuu is yidhi wuxuu yidhi dhageyso kabacdina adoo go-aan qaado haddii wax san noqdana qaado waxun hadduu noqdana iska daa laakiin maxay tahay cabsidan aad lagugu beeray iyo waxaan aad maaragtay samaynayso wuu iska saaray suufkii cudbigii buu dhagihii ka bixiyey markaasuu dhageystay nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu dhageystay cabaar ayuu macaankii qur-aanka macaankiisii ayuu la yaabay nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka baxay kacbadii buu ka tegay gurigiisuu aaday markuu nebigu baxay ayuu haddaba ka daba baxay tufayl ibnu camr addawsi nebiga sallallahu calayhi wasallam ayuu raacay markuu tagay gurigiisa ugu tagay
markuu guriga tagana wuxuu ku yiri waxa weeyaan waa liiga kaa digay arrintaa maaragtay waxaan rabaa marka bal arrintaadan iyo mashruuca aad wada bal ii soo bandhig iyo arrinta aad ka hadlayso. markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadii usoo bandhigay, islaamkiina usoo bandhigay, qur-aankiina markaa si toos ugu dul akhriyay. markuu qur-aankii dhageystay, dacwadiina loo soo bandhigay, meeshii ayuu kusoo islaamay saxaabigii Tufayl ibn Camr ad-Dawsi. kadibna markuu islaamay wuxuu yiri yaa rasuulallah, anigu waxaan ahay nin socota ah, waxaana ka imid reer la yiraahdo reer Daws iyo tuulada Daws la yiraahdo ayaan ka imid. marka dadkaygaan u tagayaa, waxaan u baahanahay dadkayga haddaan u tago oon khayrkan iyo islaamka u bandhigo ima raacayaan, imana rumaysanayaan. waxaan u baahanahay aayad aan kaalmaysto, calaamad iyo mucjiso arrin ah ayaan u baahanahay, aayad baan u baahanahay. markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u duceeyey oo ku yiri aayad buu ugu duceeyey, tii oo noqotay inuu ilaahay iftiin siiyo iyo tiriig uu maaragtay uu tuso dadkiisa marka uu tago. haddaba markuu soo laabtay uu dadkiisii ku soo baxay meel u dhow u yimid oo dalcad uu soo istaagay, ayuu iftiinkii helay. ilaahay subxaanahu watacaala aayadda uga dhigay iftiinkii. markaa wejigiisa ayaa iftiimay oo wuxuu noqday nal iyo toosh ifaaya. markaas wuxuu yiri ilaahay wejiga iga dug, haddii wejigaygu uu iftiinkiisu bato oo la arko, waxaa loo moodayaa inaan diintii aan gaaleeda ka tagay iyo tii islaamka aan qaatay inkaar igu dhacday la moodayaa, ilaahay meel kale ii geli aayadan. marka aayaddii ilaahay subxaanahu watacaala shaabuuggiisii ee uu watay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay maansho iyo tiriig buu ka dhigay, saa maaragtay u kaahaya ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigay. markii dadkii arkeen way yaabeen, sidii buu ugu yimid. almuhim markuu saa u yimid, aabihii ayaa ugu horreeyay oo la kulmo. aabihii markuu u yimid ayaa wuxuu ku yiri aabbo isma lihin, adiguna waan soo islaamay, nebi maxamed baan raacay, saa darteed adiguna waxa weeyaan mushrik baa tahay, sanamkii baad caabudaysaa, saa daraadeed waxa weeyaan aan halkaa kala joogno, amaan aan siino. markaasuu yiri wiilkaygiiyow, diinta aad qaadatay iyo wax fiican soo heshay amba waan rabaaye maaragtay ii waran. markaasuu u waramay. markaasuu wuxuu yiri ana diinta baan kula qaadanayaa. horey buu aabihii diintii ka qaatay. markaasuu Tufayl ku yiri aabba soo qabayso saan qur-aanka iyo khayrkan kugu akhriyo, soo qabayso, dharkaagana soo dhaq. sidii buu yeelay, wuu soo qabaystay. markaasuu qur-aankii iyo khayrkii iyo islaamkii u bandhigay. isla markii wax yar ka bacdina xaaskiisa u timid. markuu saa ula kulmana wuxuu yiri isma naqaano, waxa weeyaan anigu muslim baan noqday, hadda diinta aan qaatay iyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaan raacay. marka haddaad ila qaadanayso to waxa weeyaan xaaskayga ahaanaysa, haddii kalena waxa weeyaan maca salaamo. markaas waxay tiri war anu diintaadu man qaadanayaa, waxa weeyaan ii sheeg oo ii waran maxaa dhacay. markaasuu islaamkii u bandhigay, diintiina usoo si fiican ugu soo bandhigay. wuxuuna ku yiri orod oo halkaa tag, meel sanam oo maaragtay caabudi jireen, meel biyo oo yani durdur oo ku yaal, halka kusoo qabayso oo markaas soo qabaysatay ka bacdi ii soo laabo. markaasaad maaragtay yaa islaamkii ku qabanaya oo maaragtay islaamkii iyo ku baraya, qur-aankiina ku akhrinaya. sidii bay yeeshay, sidii bay kusoo islaamtay. ka bacdi halkiibu dacwadii ka bilaabay iyo inuu islaamkii u adeego dadkiina maaragtay uu dacwadii islaamka ugu yeero. laakiin bilowgii ugu horreeyay dadkii way ku kaceen, wayna diideen, wayna ku dhaga adkaadeen. kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu mar labaad dib ugu soo laabtay. markaasuu yiri yaa rasuulallah, qoomkaygu waan kari lahay, diintii way geli la'dahay, markaa rasuulka ilaahay u duceey. markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u duceeyey allahumma hadi dawsan, ilaahay uu maartay daws maartay qabiilka daws hanuuni ayuu ilaahay ugu soo duceeyey. markuu soo duceeyey nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa Tufayl ibn Camr ad-Dawsi wuxuu ku soo laabtay qabiilkiisii iyo qoomkiisii ayuu mar labaad dib ugu soo laabtay. markuu saa islaamka ugu bandhigana dacwadii, ducadii iyo maartay uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa markiiba maartay raadkeedii u helay. dadkii baa ku soo yaacay, dhammaan reer Dawsna way soo islaameen. meeshii marka dacwadii uga sii waday oo nin oday ah iyo qabiil dhan iyo qoys dhan oo maartay islaamka soo galay ayay noqdeen reer Daws. kadibna sanadkii 7 ee hijriga iyadoo nabiga sallallahu alayhi wasallam Madiina oo hijradii ka bacdi ah ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimid qabiiladii Daws oo wada socdo
oo ka mid yahay saxaabigii caanka Abu Hurayra radiyallahu anhu. halkii bay maartay ku soo degeen reedos una noqdeen qayb ka mid ah bulshadii kula nooleed Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii Nabiga garibkiisa ahaa ee Madiina ku noolaa. Tufayl ibn Amr ad-Dawsina radiyallahu anhu halkaas ayuu ka bilaabay inuu islaamka gargaarkiisii ka wado. Ka sheekeynta iyo barnaamijka xidigaha saxaabada caawa halkaa inoo joogo. inta aan kaga kulmayno xiddig kale iyo sheeko kale waxaan idin leeyahay fi amaanillah sama kuwaara. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.